بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد waxaan ku guda jirnay buugga maadada sayniska fasalka saddexaad ee dugsiga hoose xiisadan u dambeysay waxaan kusoo sharaxnay cutubka lixaad carrada ayaan kusoo sharaxnay noocyada carrada ayaan kusoo sharaxnay iyo waxtarka carrada. cutubka toddobaad waxaan ku baran doonaa hadduu ilaahay idmo insha allah. Ilayska ayaan ku baran doonaa cutubka toddobaad ilayska ayaan ku baran doonaa. Fasalka labaad waxaan kusoo baranay ilaha ilayska ayaan kusoo baranay. Waxaa ka mid ahaa ilays dabiici ah iyo ilays aan dabiici ahayn. Ilayska dabiiciga ah waxaa ka mid ahaa qoraxda. Ilayska aan dabiiciga ahayn waxaa ka mid ahaa laambad ayaa ka mid ahayd. Fasalka saddexaad waxaan ku baran doonaa ama aan ku daraasayn doonaa astaamaha ilayska ayaan ku baran doonaa. Baahida ilayska waxaa waaye baahidiisa iyo sida aan wax ugu aragno. Ardaygan waxaa laga rabaa marka astaamaha ilayska inuu sheegi karaa marka fasalka uu dhammaado, xiisadan ay dhammaato, cutubkan uu dhammaado. Astaamaha ilayska ardayga waa inuu sheegi karaa. Baahida ilayska ardayga waa inuu sheegi karaa. Ilayska sida uu u fidayo. Number 3 sida aan wax u aragno ardayga inuu sheegi karaa loo baahan yahay. Casharka koowaad ilaha ilayska hore u soo qaadanay. Astaamaha ilayska ayaan sheegaynaa. Number 1 ilayska waxaa waaye waa xawaare. Wuxuu leeyahay xawaare ama waxa waaye speed ayuu leeyahay. Xawaare markaa dhahayna ilayska wuxuu ku xawaare waxaa waaye halkii second waxaa waaye 3 milyan oo kilomitir per second ayuu jarayaa markaa ayuu sameyn karaa halkiiba oo second. Halkii second ba wuxuu sameyn karaa markaa ilaa iyo 3,000 oo ilbiriqsi ah hawada faaruq ah ku sameyn karaa markaa. Nambarka oo labaad waxaa ka mid ah refraction. Refraction marka aan dhahayna ilayska wuxuu sameeyaa wax loo yaqaano ilayska refraction ayuu sameeyaa. waa wuu foorarid. Tusaale markii walaxda oo ilayska ku dhaco oo ka dhex baxdo walaxdii oo foorarta ayuu walaxdii marka waa foorinaya markaa foorarin walaxdii waa isbedelaysaa marka xawaareheeda markii iftiinka ka dhex baxo walaxdii marka waxaa waaye jihadii ay u socoto jiha kale ay noqotaa marka walaxdii waa isbedeshaa. Nambarka oo saddexaad oo astaamaha ilayska waxaa ka mid ah astaamaha ilayska. Nambarka saddexaad ilayska wuxuu ku socdaa xariiq toosan ah ayuu ku socdaa. Xariiq toosan ayuu ku socdaa. Ilayska wuxuu ku socdaa xariiq toosan ayuu ku socdaa. Ilayska wuxuu ku socdaa xariiq toosan ayuu ku socdaa. Nambarka afaraad reflection. Reflection ayuu sameeyaa ilayska. Reflection iyo refraction ay kala yihiin. Reflection walaxdii ilayska toos muu gudbi karo waxaa waaye ma ka gudbi karo. Walaxdii markii ilayska ay ku dhacdo oo ilayskii jihadii uu ka yimaado ayay ku soo celisaa marka reflection ayaa loo yaqaanaa. Sida muraayada ayaa ka mid ah. Marka waxay ku soo celisaa marka jihadii oo ilayska ku socday ayay ku soo celisaa marka. Nambarka oo shanaad ilayska
wuxuu leeyahay marka waxa loo yaqaano dispersion. dispersion dispersion markaan dhayn marka ileysku wuu kala jabaa. Waxa uu kala jabaa ilaa iyo 7 kalar ayuu u kala jabaa ileyska. ilaa iyo 7 kalar ayuu u kala jabaa ileyska. ilaa iyo 7 kalar ayuu u kala jabaa ileyska. Wuxuu u kala jabaa marka ilaa iyo 7 kalar ayuu u kala jabaa: gaduud ama casaan, orange, waxaa kale uu u kala jabaa jaale, cagaar, buluug, indigo iyo violet. markaan dhayn marka buluug guduud ah waaye, indigo waxa waaye buluug madow ah waaye. marka ilaa iyo 7daas kalar ayuu u kala jabaa. qaybta labaad marka ileyska waa la soo nuugi karaa. nambarka lixaad ileyska waa la soo nuugi karaa. nuugid ileyska waa la soo nuugi karaa. sida marka maxaa waaye dhirta ileyska way soo nuugtaa si marka waxaa waaye cuntadeeda ay ugu samaysato. ileyska marka way soo nuugaysaa marka si marka waxaa waaye ay ugu samaysato cuntadeeda si ay ugu samaysato. ileyska sidoo kale dabeecado kala duwan ayuu leeyahay. waa double nature of light ayuu leeyahay. dabeecado mowjado iyo wuxuu leeyahay marka wax loo yaqaano walxo oo yaryar oo photon loo yaqaano. marka intaas ayaan astaamaha ku ekeenay. marka casharka koowaad ilaha ileyska hore usoo daraasaynay. ilaha ileyska dhaliya waxaa loo qeybiyaa ama loo qeybin karaa ilaha ileyska dabiiciga ah iyo ilaha ileyska aan dabiiciga ahayn. ileyska dabiiciga ah waa kan Allahna siiyey sida qoraxda, dayaxa iyo xidigaha iyo wixii la mid ah. markaan dhahayn xayawaano qaar waxay sameeyaan marka iftiin dabiici ah ayay sameeyaan. ileyska aan dabiiciga ahayn waa kan dadka sameeyaan waxaana ka mid ah ileyska tooshka, faynuusta, nalka iyo dabka iyo wixii la mid ah. markaan dhahayn marka waxaa ka mid ah marka laambadaha, shumaca ayaa ka mid ah dabka noocyadiisa kala duwan. waxqabadka koowaad waxa aan saaxiibkeyga weydiinaya ilaha ileyska habeenkii keliya la arko waa ileyska dabiiciga ah. sidoo kale anigana waxa aan sheegayaa ilaha ileyska ee habeen iyo maalin la arko. sida waxaa ilaha oo aan dabiiciga ahayn waaye maalintii la arko waa ilaha dabiiciga ah. ilaha aan dabiiciga ahayn ayaa ka mid ah habeen iyo maalinba la arki karo. habeen iyo maalinba waa la arki karaa. ilaha dabiiciga ah meesha waa qaldoonaya. waxa aan saaxiibkeyga weydiinaya ilaha ileyska ee habeenkii keliya la arko waa ilaha habeenkii keliya bis la arko. waxaa ka mid ah marka ilaha dabiiciga dayaxa ayaa ka mid ah habeenkii bis ayaa la arkaa. qoraxda ayaa ka mid ah. xidigaha ayaa ka mid ah. ilaha habeenkiina ilahan kale waa habeenkii waa la arki karaa. kuwa aan dabiiciga ahayn habeenkii naftirkooda waa la arki karaa kuwa aan dabiiciga ahayn. anigana waxa aan sheegaya ilaha ileyska ee habeen iyo maalinba la arko. habeen iyo maalinba waa ilaha la arko waa ilaha dabiiciga ayaa ka mid ah. qoraxda maalintii waa la arkaa sooma maalin walba qoraxda waa inay soo baxdaa ila dabiici ah waa qoraxda. ilaha aan dabiiciga ahayn waa ka mid ah ilaha aan dabiiciga ahayn ayagana maalintii iyo habeenkii baa la arki karaa. waa tooshka habeen iyo maalinba waan arki karnaa sooma hadii aan ifsano.
Waxqabadka labaad waxa aan u kala saarayaa sawiradan hoose ama soo socda ilaha ilayska dabiiciga ah iyo kuwa aan dabiiciga ahayn. Waxa aan ku qorayaa il kasta meesha aan ku aadanahay. Laambada marka habeenkii maalintii baa la arki karaa shumaca, habeenii maalin waa la arki karaa dayaxa, maalintii la arkaa xidigaha, habeenkii la arkaa qoraxda, habeenkii ayaa la arkaa qoraxda, maalintii bis ayaa la arkaa dayaxa, habeenkii ayaa la arkaa dayaxa iyo qoraxda isku qaldoocaya. Qoraxda maalintii ayaa la arki karaa, dayaxana habeenkii ayaa la arki karaa. Qoraxda maalintii ayaa la arki karaa, dayaxana habeenkii ayaa la arki karaa, xidigahana habeenkii. Marka kuwan kale oo aan dabiiciga ahayn habeenii maalin baa la arki karaa haddii la shido. Sawirka isha ilayska dabiici ah, aan dabiici ahayn. Qoraxda dabiici ah, dayaxa dabiici ah, nalka ifaya dabiici ahayn, shumaca dabiici ahayn, xidigaha dabiici ah. Casharka labaad, waxtarka ilayska. Ilayska waxtar badan ayuu u leeyahay noolaha. Qoraxdu waxa ay bixisaa ilays, diirimaad ah ayay bixisaa, ilays iyo diirimaad ah ayay bixisaa, ilays iyo diirimaad ayay bixisaa. Nooluhu waxa uu u baahan yahay ilayska qoraxda ayuu u baahan yahay. Sida marka waxa waaye dhirta waxay u baahan tahay ilayska ay u baahan tahay. Xayawaanada diirimaada ayay u baahan yihiin. Waxqabadka saddexaad, dhirtu waa kana mujida ilayski iyadu waxay leedahay cagaari ay leedahay, dhirtii way qabsataa marka. Dhirtii way qabsataa tan kadibna cunto ah ayay ka samaysantaa. Xayawaanada inagana diirimaad ah ayay ka qaataan qoraxdu. Diirimaad ayay ka qaataan. Waxa aan weydiinayaa marka saaxiibada ilayska qoraxdu waxa uu u taro noolaha sida dhirta iyo xayawaanada. Dhirta marka waxa waaye tamar ayay ka samaysataa, xayawaanadan waxa waa diirimaad ayay ka helaan. Xayawaanadana diirimaad ayay ka helaan. Sidoo kale xayawaanadu waxay ka helaan vitamin D ayay ka helaan si indirectly ah. Vitamin D jirka ayuu ku jiraa, tan kadibna waxa waaye qoraxdii markii xayawaan ku dhaco maqaarka ayuu ku jiraa marka vitamin D-ga. Vitamin D loo yaqaan waxa waaye marka 7 dihydrocholesterolka loo yaqaan, markaas marka dib loo bedelaa marka oo vitamin D laga dhigaa marka. Waxaa loo bedelaa marka vitamin D ayaa loo bedelaa marka qoraxda ayaa laga helay. Si indirectly waaye laakiin qoraxda ayaa firfircoon gelisay. Okay, waxqabadka afaraad kan xoogaa vitamin D-ga aan ku celino. Jirkaaga waxaa ku jirta maado loo yaqaan 7 dihydrocholesterol oo waxaa loo bedelayaa marka waxa waaye vitamin D ayaa loo bedelayaa marka. Waxaan u bedelay marka waa qoraxda. Waxqabadka afaraad, labo ayaan isu weydiinaynaa in bani aadamku u baahan yahay ilayska qoraxda oo u baahan yahay. Ilays la'aan wax ma arki karnaa. Waxa aan ka fakarayaa kadibna sheegayaa faa'iidooyinka kala duwan ee ilayska noo leeyahay maalin iyo habeen. Maalintii diirimaad ayaan ka qaadanaa, waxna waan ku aragnaa. Habeenkiina waxbaa ku aragnaa ilayska. Sidoo kale dhirta ayuu faa'iido u leeyahay ilayska badana. Dhirta cuntay ka samaysataa. Dhirtu waxa kaabiyaasheedu waxaa ka mid ahaa oo ilayska ayuu ka mid ahaa. Ilayska marka aan helin cunto ma samaysan karto. Cunto haddii dhirta ay samayn weysan waxa waaye cunto la'aan ayay soo wajahaysaa. Sidaa la aageed marka faa'iidadaasna way ka mid tahay. Waa si indirectly waa taas iyadana. Casharka saddexaad, noqodka ilayska waa reflection waa kidayaan sheegin waaye afka qalaad qorin waaye
reflection 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 haddii aan kubad ku dhufano ama kubad ku dhufto dhulka, maxaa ku dhacayo kubaddii kor ayay u boodaysaa, way soo laabanaysaa. Kubaddu kor ayay u soo noqotaa, kadib way soo laabanaysaa. Ilaysku sida kubadda ayaa u sameeya noqodka marka. Ilaysku sida kubadda ayuu u sameeyaa noqod. Marka maraayad haddii ilayska aan ku aadino, ilayskii wuu soo laabanaa, marka meel kale ayuu aadayaa. Waxaan isweydiinaynaa marka waxa dhacaya marka qoraxda lagu aadiyo maraayadda. Qoraxdii jihadii ay eed maxaa waaye, maraayad markii aan ku aadino waa laga leexin karaa, marka dhinaca kale qof kale ayaa lagu aadin karaa. Saaxiibkay waxa aan weydiinayaa waxa dhacaya haddii maraayadda laga leexiyo qoraxda. Qoraxda haddii lagu leexiyo marka qof saaxiibka ah lagu aadiyo, qoraxdii ayaa toos qofkii ugu dhacaysa, marka kuleel ayuu dareemayaa. Haddii laga leexin marka waxaa qoraxdii laga leexin, marka sardi ku aadinta waa laga leexin karaa marka maraayad idoo la adeegsanayo, ama walxaha oo dhalaalaya haddii la adeegsado waa laga leexin karaa. Maxaa iska bedelay derbiga wixii ka muuqda marka derbiga wixii ka muuqday, marka waxaa derbigii waxaa wada iftiin cadaan ah laga wada dhigay, qoraxdiina ayaa ka dhigtay marka derbigii wuu isbedelay, marka derbi cadaan ayuu noqday. Waxa aan macalinka u sheegayaa wixii aan arkay oo isbedel ah. Xaafadda ku samayn kartaa wax qabad weyn Soomaan. Derbigu waa cadaan ayuu noqday, midabkii waa iska bedelay, qoraxda ayaa toos u qabatay si dheeragta leh. Soo naqashada ilayska marka uu ku dhaco dul soo celiya waxaa loo yaqaanaa ilays noqod ayaa loo yaqaanaa. Walxaha dhaldhalaalayo ama sida maraayadda haddii qoraxda ay ku dhacdo way soo laabanaysaa marka waxqabadka lixaad, waxa aan si fiican u fiirinayaa sawirka. Shimbirtan marka ilayska ayaa ku dhacay, biyo korkeedana waa taagan tahay, ama biyana waa u dhowdahay. Kadibna waxaa ilayskii ku dhacay, ilayskii markii ka gudbay, kadibna waxaa waaye biyihii ay u gudbeen, biyihiina waxaa waaye ilayskii soo celiyeen. Kadib meesha waxaa ka samaysmay marka sawir ayaa ka samaysmay. Waxa aan isweydiinayaa sawirka ka muuqda biyaha dhexdooda. Waxa aan saaxiibkay weydiinayaa waxa uu ka fahmay sawirka. Sawirka waxaa laga fahmay marka shimbirtii marka intay taagan tahay, ilayskii xayawaankii ku soo dhacay waa ka soo gudbay, kadib biyihii ku dhaceen, biyihii ilayskii soo celiyeen. Ilayskii markii soo celiyeen marka xayawaankii ku dhacay, xayawaankii marka wuxuu sameynayaa marka oo humaag ayuu sameynayaa, sawir ayuu sameynayaa. Okay, casharka afaraad sidee wax u aragnaa. Waxaan wax u arki karnaa markii walaxda ilaysku uu ku dhaco, ilayska markii walaxda uu ku dhaco, walaxdii oo ilayskii soo celiso, markaas ayaa wax la arki karaa. Waxqabadka toddobaad, waxaan sheegayaa faraqa u dhexeeya labada qol. Qolkan waxaa waaye qolka koowaad qol mugdi ah waaye, qolka labaadna waxaa waaye qol oo ilays leh waaye marka. Okay, waxa aan caddeyn karaa marka faa'iidada uu ilaysku ii leeyahay si aan wax u arko. Marka ilays la'aan wax ma la arki karaba. Walxaha waxa aan arkaa marka ilayska ku dhaco dushooda uu soo noqdo. Walaxdii ayuu ilayskii ku dhacay, kadib maxaa waaye
ileyskii qayb ka mid ah soo celinayaan ama toos soo wada celinayaan. Marka kadib walaxdii meesha yaallo caadi ayaan u arkaynaa. Waxqabadka sideedaad waa ka iyadana maxaa leenahay marka ardayda laga rabo laakiin anaga sharxaya dhib malaan. Waxaan saaxiibkay la wadaagayaa su'aalahan ama su'aashan. Goorma ayuu wiilka arkay alaabta hortiisa ka muuqdaan? Wuxuu arkay markii ileyska uu ku dhacay. Ileyskii iyo walaxdii ku dhaceen. Walaxdii ileyskii ay soo celiyeen. Qayb ka mid ah soo celin karaan ama ileyskii waa soo wada celinayaan. Kadib maxaa waaye miiskii iyo alaabihii meesha saarnaayeen oo dhan marka waa arkaya marka. Waxaa loo yaqaan noocan marka waxaa loo yaqaan marka refraction ayaa loo yaqaanaa. Refraction ayaa loo yaqaan. Waxa aan wax arkaa marka ileyska ka soo noqdo duulaha ayaa markaas wax arki karnaa markaas ayaan wax arki karnaa oo uu soo gaaro ishiida. Noqodka ileyska waxa uu muhiim u yahay marka aragga. Ileyska marka qayb ka mid ah la soo celiyay ama toos loo soo celiyay. Haddii toos loo soo wada ileyska jihadii uu ku socday oo si toos ah loogu soo celiyo waxa refraction ayaa loo yaqaanaa. Waa ly. Haddii ileyska jihadiisa oo jiha kale loo leexiyayna waxa waaye refraction waa refraction. Okay. Tijaabadan casharka shanaad socodka ileyska. Waxqabadka sagaalaad tijaabada socodka ileyska marka ileyska jihadiis waa isla bedeli karaa marka laakiin ileyska waxa xariiqmo toosan ayuu ku socdaa sida caadiga astaanta ileyska lagu yaqaano waa xariiq toosan ayuu ku socdaa. Tijaabo qalab aan u baahanahay 3 baakadood oo isla eg qalin toosh xanjo miis. Kadib waxaa la sameynayaa marka waxaa la adeegsanayaa waxa aan daloolka yar oo wareegsan ku sameynayaa baakadaha dhexdooda anigoo qalinka ku daloolinayo 3 meelood oo fogaan isla eg isu jira ayaa miiska dushiisa kula dhejinayaa xanjada ayaa ku dhejinaya baakadaha sida sawirka ka muuqda. Kadibna toosh ayaan ku ifinayaa daloolka baakada koowaad. Waxa aan isha saarayaa daloolka baakada saddexaad. Waxa aan sheegayaa marka wixii aan arkay. Saaxiibkay ayaan ka codsanayaa in uu soo fiiriyo daloolka baakada saddexaad oo ii sheego waxa uu arkay. Markii baakada saddexaad ishaada adiga saartid waxaa arkaysaa marka ileyska oo hal xariiq toosan uu ku socdo ayaad arkaysaa marka. Waa faa'iidada oo ay ka mid tahay marka oo in ileyska xariiq toosan uu ku soconayo. Waxa aan isweydiinaa marka tijaabada waxa ay noo cadaatay marka in ileysku waxa uu ku socdo xariiq toosan uu ku socdo ay noo cadeynaysaa marka. Haddii waraaqada saddexaad aan fiirino isha aan soo saarno marka waxqabadkan u dambeeyo oo 10aad waxa aan sharaxayaa waxa ka fahmay sawirka. Waxa aan weydiinayaa saaxiibkayga oo waxa uu ka fahmay tijaabada hore. Waxa aan ka fahmay marka ileyska haddii walxo oo ka gudbayo haddii loo adeegsado ileyska waxa jihadiisa waa laga bedeli karaa. Laakiin haddii walxo oo toos u gudbayo yacni oo duleel caadi ah ileyska waxaan fahmaynaa marka in si toos ah oo xariiqmo toosan uu ku soconayo ayaan ka fahmaynaa. Marka sawirkaas marka waxaan ka fahmaynaa marka xariiqmada inay ileysku uu ku soconayo marka xariiq toosan uu ku soconayo ayaan ka fahmaynaa marka. Laakiin haddii ileyska walaxdii qayb ka mid ah uu gudbiyo ileyski marka waa fooraraya marka waa walaxdii sawirkeeda
way fooraraysaa marka foorarid. Okay. Tijaabada marka qalabyada la adeegsanayo iyo marka waxaa waaye waxay ku xiran tahay marka muujida waxaa waaye walaxdii waxay ku socotaa marka xariiq toosan ayay ku socotaa. Okay, cutubkan halkan ayuu ku ekeenayaa. wixii markaas oo carqalad hadda aragtay in la soo wadaago insha Allah mobilka lagu duubayo waa la soo wici karaa marka insha Allah boqolkiiba boqol insha Allah waa ku dadaalaya laakiin in wax qaladaad aan dhicin idinkii la soo wadaa bini aadan leeyahay waa la is qabdoomi karaa laakiin marka insha Allah la soo wadaa insha Allah wixii qalad ah haddii marka qaladaad aan arkin waxa si la rabo waayo